بسم الله الرحمن الرحيم كلنكا ودا تشيغا madaxdii hore iyo siyaasiyiinta waxa maanta soo gabagabobay kulan wada tashi oo socday 2 maalmood oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo ku marti qaaday madaxdii hore iyo siyaasiyiinta dalka hore uga soo shaqeeyay kulanku waxa uu ku bilowday jawi aad u wanaagsan saaka oo ay ka mahad celiyeen dhammaan mas'uuliyiintii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb galay runtiina ay muujiyeen in wada tashiga noocan oo kale ah uusan dalka hore uga dhicin qodobadii looga hadlay shirka waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wada tashiga qaranka waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hanaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kala ah koow nooca doorashada dalka labo nidaamka madaxtinimada dalka saddex nidaamka xisbiyada badan afar guddiga doorashada qaranka shan mideynta muddaxileedka hay'adaha federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada iyo ugu dambeyn afar lix habraaca dhamaystirka dib u eegista dastuurka haddaba waxa labadii maalmood ee kulankan uu socday aad loo lafaguray qodobadaasi oo siyaasiyiintu ay soo jeediyaan runtii aaraa kala duwan oo u baahan in la tixgeliyo inta ay wada tashiyadu ay socdaan kulanku marka waxa uu bogaadiyey madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya dadaalada dalka looga ciribtiraya khawaarijta iyo waliba guulaha waaweyn ee laga gaaray iyadoo lagu baaqay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada nooc walba oo ay tahay sidoo kale kulanku waxa uu bogaadiyey dadaalada dawladda ee deyn cafinta iyo dhamaystirka hanaanka dawlad dhiska Soomaaliya iyo mas'uuliyadda in ciidamada qaranka ee Soomaaliya ay la wareegaan amniga kulanku waxa uu bogaadiyey doodaha u adeegaya dhamaystirka dawlad dhiska Soomaaliya ee soo socday wuxuuna sidoo kale dareen ka muujiyey ka maqnaanshaha Puntland ee wada tashiga arrimaha masiiriga ah waxaana lagu baaqay in ay muhiim tahay ka qaybgalkeeda kulanka oo ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan galabta ma ahan kii ugu dambeeyay waxaa jiri doona kulamo iyo wada tashiyo kale oo kala duwan oo laga yeelan doono arrimaha masiiriga ee dalkeena Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq